kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka janalka Goobweyn Media qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxda Soomaalida oo horumar ka gaartay heshiiska doorashada Soomaaliya qaramada midoobay oo ka hadashay ergeyga midowga Afrika u soo magacaabay Soomaaliya qodobada kale oo aan warkaan idinku haynana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo rajo wanaagsan ka muujinaysa shirka madaxda Soomaalida uga socda magaalada Muqdisho iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo sheegay in heshiis laga gaaray shirka wada tashiga doorashada saddex ruux oo isku qoys ah oo lagu dilay gobolka Galgaduud madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha dalka Masar oo kula yeelan doona qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan ama aad ku dhageysan doontaan warka janalka Goobweyn Media kusoo dhawaada warkii oo fidsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay horumar ka gaareen wada hadaladii ku saabsanaa arrimaha doorashada afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macalimow ayaa shaaciyay in maalinta Khamiista ah la soo gabagabayn doono xaflad weyn oo lagu saxeexayo heshiiska lagu gaaray shirka Muqdisho lagu qaban doono magaalada Muqdisho maalinba maalinta ka dambaysa horumar ayaa laga gaarayaa shirka ayuu yiri Maxamed Macalimow kulankaasi oo qaatay 4 maalin ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho ayaa ka arrinsanaysa sidii xal waara looga gaari lahaa hanaanka doorashada Soomaaliya oo muran uu hareeyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ka hadlay fursadaha hor yaalla hogaamiyaasha Soomaalida ee ku shirsan magaalada Muqdisho xilli uu khudbad ka horjeedinayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay xaaladda gaarka ah ee ka jirta arrimaha Soomaaliya ama guud ahaan wadanka Soomaaliya James Swan ayaa sheegay in ay tahay arrin aad looga walwalo in dowladda Soomaaliya ay diido ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika ay u soo magacaabeen arrimaha Soomaaliya mudane James Swan ayaa waxa intaasi uu ku daray inay wax si weyn looga qoomameeyo ay tahay go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku diiday ergeyga midowga Afrika u soo magacaabay Soomaaliya go'aankaasi kadib waxa uu sheegay ergeygii loo soo magacaabay inuu ka laabtay tallaabadii midowga Afrika ugu magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan Soomaaliya isla markaana waxa uu hakiyay shaqadaasi ayuu yiri James Swan oo ka hadlayay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa ay rajo wanaagsan ay ka muujisay shirka madaxda Soomaalida uga soconaya magaalada Muqdisho ee lagu wado in maalinta Khamiista lagu soo gabagabeeyo halkaasi golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay kulan ka yeeshay arrimaha Soomaaliya ayaa waxa khudbad ka jeediyay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan Mr James Swan ayaa kulanka ka sheegay in shirka madaxda Soomaalida uga socdo muhiimad gaar ah uu u leeyahay loona baahan yahay in heshiis rasmi oo kama dambaysa ay kaga gaaraan arrimaha doorashooyinka dalka waa muhiim in shirka ka socda magaalada Muqdisho ay ka soo baxaan heshiis la fulin karo si doorasho loogu qabto waqtiga yar ee suurtagalka ah ayuu yiri xogayaha gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr James Swan ayaa sidoo kale bogaadiyay shirka madaxda Soomaalida ay ku doonayaan in iyaga ay heshiis kaga gaaraan khilaafka ragaadiyay ee uu xusay in ay ku jirto danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed shirkan qaramada midoobay ay shalay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya ayay kaga hadleen xaaladda dalka iyo waliba xilli shir uu uga socdo madaxda Soomaalida magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo halkaasi uu maalintii afraad uga soconayo shirkaasi madaxda Soomaalida lama saacin heshiiska laga gaaray qodobadii ugu adkaa ee khilaafka doorashada dalka ka dhacay isla markaana la filayo in maalinta berita oo Khamiis ah ay suurtagal tahay in shirkaasi laga soo saaro warmutiyad faahfaahsan oo ku saabsan waxyaabaha ay madaxdu ay ka heshiiyeen wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in hogaamiyaasha Soomaalida ay ka wada hadleen ama ay ka heshiiyeen ama ay iska afgarteen arrinta doorashada qodobadii la isku khilaafsanaana laga heshiiyay Maxamed Cabdirasaaq waxa uu ku sheegay hadalkan hab muuqaal ah oo uu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga qayb galay isagoo oo sheegay 3 arrimood oo waaweyn oo caqabad ku ahaa doorashooyinka dalka balse hadda la isku afgartay hadda waxa aan gaarnay heshiis loo dhan yahay oo horseedi doono doorasho loo wada dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo
xor iyo xalaal ah. 3 qodob oo muhiim u ahaa dhammaystirka heshiiska dhammaantood waa laga wada hadlay oo mabda ahaan waa la isku raacay, ayuu yidhi Maxamed Cabdirasaaq waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in la filayo in la soo saaro warmurtiyeed rasmi ah kadib wadahadallada socda. Soomaaliya ayaa gashay xiisad siyaasadeed kadib markii madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya ay ku heshiin waayeen qaabka doorashada dadban ee Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay James Wan oo la hadlayay golaha ammaanka wax yar ka hor hadalka wasiirka, waxa uu sheegay in ay jireen walwal laga qabay in isku dhacyo sababa dalka inay dib u dhigaan ay ka dhaceen 25 Abriil dalka, taas oo uu ku tilmaamay in ay dalka qarka u saartay inuu fowdo galo. Wararka ka imaanaya ama naga soo gaaraya deegaanka Garesley oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Balanballe ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay 3 ruux oo isku qoys ah. Kooxo hubeysan ayaa la sheegayaa in ay 3 ruux ay ku dileen gurigooda kadibna ay isaga baxsadeen goobta uu dilku ka dhacay. 3 ruux oo isku qoys ahaa ayaa kala ahaa 2 wiil iyo gabar ay abti u ahaayeen, waxaana wararka laga helay halkaasi ay sheegayaan in loo dinay aana qabiil. Dilalkan loo geysanayo dadka rayidka ah ayaa ku soo badanayay baryahanba gobolka Galgaduud, iyadoo oo deegaanka Haraale oo isna ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Balanballe lagu dilay 1 qof, 7 kalena lagu dhaawacay. Gobolka Galgaduud waxay caan ku tahay in inta badan dadka deegaanadaasi dega ay isu dilaan aanooyin qabiil iyo waliba dekanooyin ay iyagu kala galeen. Madaxweynayaasha Djibouti iyo Masar ayaa la filayaa in ay ku kulmaan magaalada caasimadda u ah dalkaasi Djibouti. Madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al-Siisi ayaa la filayaa in maalinta Khamiista ah ee berrita ah uu gaaro dalka Djibouti, halkaasi oo uu kulan kula qaadan doono dhiggiisa dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dal. Bartamihii bishii Abriil ayaa madaxtooyada dalkaasi Masar ay sheegtay in Geele iyo Siisi ay ku wada hadleen qadka telefoonka. Mowduucyada ay ka wada hadleenna waxa ay ka mid ahaa sidii xal loogu heli lahaa muranka ka taagan dhismaha biyo-xireenka Itoobiya ka samaynaysa Blue Nile. Dhowaan ayuu ahaa madaxweynaha Masar markii uu hambalyo u soo diray dhiggiisa Djibouti oo mar kale ama mar shanaad dib loogu doortay xilka madaxweynenimo ee dalkaasi Djibouti. daawadayaal waa naga intaa warkii channelka Goobweyn aad kala socoteen. Waxaa idiin soo jeedinaya aniga Axmed Cabdi Maxamed. Inta ku kulmayno nabaday.